Michael Migwotin oo 33 jir ah iyo John Morris oo 26 jir ah ayaa ka mid ahaa 3 qof oo weerar ku qaaday xarunta Islaamiga ah Darul Faruq ee magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota sanadku markuu ahaa 2017. Michael Migwotin waxaa shalay lagu xukumay 17 sano oo xarig ah sabab la xiriira doorkii uu ku lahaa qaraxii ka dhacay masjidka Darul Faruq halka dambiile John Morris isagana xukunkiisa uu noqday 14 sano oo xabsi ah. Sidoo kale sanadkii aynu soo gudubnay ayaa Michael Harry hogaamiyaha kooxda weerartay xarunta Islaamiga ah lagu xukumay 53 sano oo xarig ah. dhanka kale waxaa xukunkaasi ku dhacay dambiilayaashaasi weeraray masjidka Darul Furqan ayaa waxaa ka aragti dhiibtay culimada iyo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota iyagoona la wadaagay siday u arkaan xukunkaasi lagu riday raggaasi dambiilayaasha ah. alxamdulilah maanta waxay ahayd maalin nooga duwan maalinkii hore ee laba goor bay maxkamaddan dhacday, laba loo kala qaybiyey. ninkii watay maxkamadda odayga u ahaa iyo niman dhalinyara uu soo habaabiyey uu soo mataqaanaa isha marin habaabiyey. marka ninkii watay alxamdulilah waan aad baan uga dagaalanay. alxamdulilah ninkaas waxaa lagu xukumay 53 sano oo markaa ay tusayso inuu cumri daa'im ku jiri doono xabsiga. waana nin aan markaan la hadalnay ama aan maxkamadda xataa joognay ogolayn inuu xataa cudurdaar ka bixiyo, aaminsan inaan dad mataqaana isha u qalma waxa uu sameeyey ka. marka waan ka guuleysanay. maanta waxaa fursad noo siiyey qaadiga inaan wax ka dhahno oo go-aankooda maanta aan codsi aan bixino si maadaama aan nahay dadka la qarxiyey, maadaama dadka dhibaatada gaartay aan nahay. wuxuu noo soo bandhigay qaadigu inay 50 ilaa 53 sano oo mid kasta u qalmo, laakiin annaga ay nagu xiran tahay ama annaga ay tahay qaybta ugu badan inaan wixii aan dhahna ay wax ku qaadanayo. taas marka waxaan qaadanay annaga cafiskaan qaadanay, waxaan qaadanay inaan dhahno maadaama ilaahi subxaana watacaala uu naga badbaadiyey maalinkaas, maadaama diinteenna ay tahay diin cafis, maadaama bil ramadaan lagu jiro, maadaama aan nahay dadka muslimiinta dadka loogu talagalay bini'aadanimada inay badbaadiyaan, inaan annaga markaa mubaadarada la nimaadno oo annaga aan gacanta sare yeelano, diinteennu ay yeelato sharaftii ammaanta. markaasna aan waxaan cafinay u hadalnay laba ninoo dhalinyaro ah oo wax badan aan markaas sheegeen qorshaha qabanqaabinta iyo isku dubaridka qaraxi aan ku lahayn. maadaama aan marti ahay arrintaa horta waan ku farxay. darsiga ugu weyn ka baran karaan risaalad weeye loo dirayo dadkan lala degan yahay ee muslimiinta aan ahayn, inuu islaamku suuradda la siiyo uunan ahayn oo suuradda leeyahay ah nebigu sallallahu alayhi wasallam fatxu maka idhabuu fa antum tulaqaa, iska taga waad xor baa tihiin. alcafwu cinda almaqdira, qofku marka uu karti u yeeshay inuu qofka ka argoosan kari ka argoosto inuu iska dhaafi karo. ducada aan akhrino ramadaankii allahuma innaka cafuwan tuxibu alcafwa facfu canna, inuu ilaahay dambi dhaafka jecel yahay adiguna dadka inaa u dhaaftid ay fiican tahay. risaalada kale waxay soo saaraysaa suuradda dadka muslimiinta ee wada noolaashaha, ilbaxnimada muslimiinta soo saaraysaa, isku dhawaashahay ka qayb galaysaa, wadankan la wada leeyahay ee lagu wada nool yahay, in gacmaha laisku qabsi loo dhisi lahaa baabi'inta xumaanta dadka ku jirtay baabi'inaysaa. markii aan maqlay masaajidkan in la qarxiyey aad ayaan u kurbooday, aad ayaan u baqay, aad ayaan u cabsaday, maadaama annagoo dumar iyo ragba aadna loo eeganayo, maadaama diinteenna ay dadku u haystaan inay cabsi tahay oo loo qaatay inay xijaabka dumarkaoo kaleetood in lagu fiirsado cabsi iyo welwel bayna gelisa. annaga xilli walba waa aad baan u imaadaa, waan ka baqay inaan imaado, ilmahayga xataa waa la baqay. marka insha allah wax walbaba kheyr ilaahay hana xaftiya. anagoo si cadaalada u dhacday, weliba waa u naxariisanaysaan nimankaani tegi, maadaamay diinteennu dad aada u naxariista aan nahay oo diinteennu ay naxariis aada uga hadasho. ugu dambeyntii eedeysanayaashaasi la xukumay ayaa ka tirsanaa koox argagixiso ah oo midagta fog ah oo loo yaqaano maleeshiyaadka bakaylaha cad. Abdiraxmaan Atore, Nairobi. Thank you for listening. Please make sure to share, like, and subscribe to Runta News channel on YouTube, Facebook, and Twitter.